waxa farxadaya hadaan ay gudoomiye ku-xigeenkii gobolka ayna ku simaha gudoomiyaha gobolka inaan maanta meel isku keeno muddo ka joogta sanad iyo dhowr bilood xildhibaanadii deegaanka ka soo baxay degmada Luqaya arintaas waa guul isku keenkiina Allah ka dhigo mid khayr qaba mid fiican mid dadka isku wada Allah ka dhigo waxaan codeynaa walaalkeen oo ah gudoomiye Umar Maxamed musharaxa gudoomiye ku-xigeenka Umar Maxamed Dimbil intii raacsan gacanta u tagtay markay isaga laga reebo 12 codba wuu helay taariikhda bisha oo todobadii bishii saddexaad 2014 Umar Maxamed Dimbil waa gudoomiye ku-xigeenka degmada Luqaya waxaan kaloo sheegayaa gaar maayar ya maayar ku-xigeen waxa la inaga rabaa dadku isdhexgalka u baa ka maqnaay colaadimo jirta wala wada yaala meel walbana waa loo joogaa hase yeeshee caana jiilaal amba candareen u bay xidhan inaga rabaa maanta hadii la isku keenay inaad jidka toosan u bilowdaan inaad xaqa iyo wixii sax iyo wixii cadaalad ugu wadaan in degmadu faalish baa dhinac kaga yaalay oo cashuuraha lama wada qaado degmada Luqaya hadii loo qaado cashuurahooda ama maaragtay waxa ay leedahay hadii loo ururiyo wax badan baa laga helaa meel badi ku taalo oo la gaajoonayo Luqaya sayda xogtii lama arag taasina waa karti xumo waayo waxa leedahay Luqaya beeri bay leedahay xoolo bay leedahay midxdii bay leedahay badii bay leedahay macdantii bay leedahay inta shay qofka haysta ee meesha haysata ee haddana laga gaajoonaya mashaakilkeeda ee baraka dhacaya waxaan ugu dardaari lahaa iyadoo qodobada u dambayso oo inta yar iga dardaaran tahay waxaan ugu dardaari lahaa inaad dadka si wanaagsan u wadaan hore waxaan soo dhaweynayaa barsaabka gobolka ama kunsimaha barsaabka gobolka iyo waftiga la socda oo kamid yahay maayarka degmada Baki waxaan leeyahay ku soo dhawaada degmada Luqaya marka labaad waxaan soo dhaweynayaa xildhibaanada golaha deegaanka ee muddada badan ka maqnaa golaha maantana noo yimiday ay noona suura gashay gudoomiye ku-xigeenkii muddadaasi aan xilka haynayba banaana inaan maxaydan iyaga u doorano oo marka hore baan ugu talagalnay inaan iyaga ka dhigno runtii waxaan rajeynayaa in maxaydan aan wada shaqayn wanaagsan aan muujin doono oo dadka maxaydan wax dhibaato dadka ka dhaxeeya maanta oo lagu dhexdhexaadiyo ma jirto in yaroo iscaanada ugashaa jirta intaana waxaan rajeynayaa anagoo isku duuban ka xildhibaan ahaan inaan dhamayn doono hadii Ilaahay raahdo gudoomiyaha ku-xigeenka cusubna waxaan ku soo dhaweynayaa degmada waxaan ku soo dhaweynayaa xafiiska waxaan leeyahay insha Allah waxaan wada shaqayn doonaa si wanaagsan oo hufan oo daacadnimo ku jirto hawshan la inoo igmay waxa weeyaan dadkan degmada Luqaya ku nool inaan u shaqayno marka waxaan iska kaanshan doonaa sidii aan dadka ugu shaqayn lahayn wixii karaanka iyaga iyo awoodeeda aan horumarin aan ugu geysan lahayn degmooyinka marka waxaan leeyahay mar labaad ku soo dhawaada aad iyo aad baan u mahadsantihiin assalaamu calaykum salaan kadib hadii aan yar ilaahdo kulli golahan waxa laga yaabaa anagu waan shaqaynaa degmahan baan u shaqaynaa golaha deegaanka shaqaynahay waxa laga yaabaa idinku inay shirar yeelan oo gudoomiyihii ku-xigeenkii maanta la dooranayaa oo sanad iyo 2 bilood kulaashu way jireen sanad iyo 2 bilood iyo 7 maalmood baan ugu jiray waxaa laga shaqeeyaa horta go'aanka golahan gaaro waxa fulisay 3 nin oo la guddiga fulinta gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka waxaanay fuliyeen go'aankii golahu gaaray 9 maalmood ayaa la kala maqnaadaa degmooyinka siida maanta gobolka 9aad baa shirka caadiga la qabtaa eeda iyo 2 bilood bay ku qabsadaan shirka waxa lagu xisaabtamaa wixii maalinta la go'aansaday baa shirka dambe caadiga lagu xisaabtamaa guddiga fulinta oo la yiraahdaa maxaa qorsheeyay nooca ka fulay maxaa ka qabsoomay maxaa wixii qabsoon waay sababtu qabsoon waay qoligiina la su'aalayaa muddo kale waxa golaha fulinta gudoomiyaha u sareeya gudoomiyaha waa gudoomiyaha degmada ee dhammaan dalka waa degmadiisa ku nool oo dhan xukuuma wana gudoomiyaha golaha deegaanka wana afayaan golaha hay'adaha dawladda dhexe ee degmada isaga dhammaan hoos yimaadaan markay saatay waxa laga rabaa guddiga fulinta inay qulubta dadka degmada ku dhamaan dhammaantood ka socoto waxa dadka inay dhageysato tuulo ugu tagto guddiga fulinta laga rabaa waxa kale oo soo golaha 2 nin oo la yiraahdo gudoomiyaasha guddi hoosaadyada marka labadan laga reebo 2 guddi baa la isku qayban doonaa
laba gudoomiye hoosaad baad yeelanaysaa marka labadaas ku soo biiraan saddexdii hore gudida joogtada leeyahay labada nin 20 maalin bashir ugu imanayaan de waxay gudiyoodu keenaan bay soo gudbinayaan gudida fulinta horta qaabka loo shaqeeyo waa qaabkaas waxa laga rabaa marka gudida fulintu inay dadka dhammaan amniga waxbarashada caafimaadka biyaha iyo wax soo saarka intaba yani ku dhiirigeliyaan oo intaba ka shaqeeyaan iyaga laga rabaa inay dadka dhageystaan baahidooda soo ururiyaan gudida fulinta laga rabaa shaqaalaha marka la qoriyay shaqaalaha degmada inta lagu qoray tuulooyinka lama geeyo dowladda hoose maanta way cadda male meesha cashuurta dheeriga soo baxda waxaa loo qortaa beesha la tagaa odayaasha loo tagaa ninka looga baahan yahay lagu weydiistaa oo beesha kamid ah nin aamina oo cashuur qaadi kara nasiya leeyahay oo damaanad la weydiiyo siyaasad tuulooyinka loogu qoray cashuur qaadayaasha laakiin inta meel lagu qoray meelaha lama geeyin karo lama la geeyo dadka taasina waxa weeyaan cadaalad way u tahay oo ummadda ay raacsataa noocaasi intaas marka ay timaado dadkii shacbiga iyo loo dhageysto sana talada wax looga siiyo kalsooni badan oo golihii degmada maamulkii degmada iyo shacbiga dhaxalay ma shacbiga marka wixii aan loogu lahayn weydiinaya waa cashuurtii lagu lahaay horta qoladin golaha deegaanka dhammaantoodka oo islaamiyay sida sharafta leh ee ay doorteenna waan ugu mahadcelinayaa بعدين إن شاء الله ورتورت من دبر بنك المغنين ويدق مدني يدق وينفعنا يبنع كقاوني ما أنت وحنا مرينا أو بشيء نصدحات وجبتاي إن أي سوحر أنت هوشي أنت مدحيجي واحد خلينا وسوحر مدونه هذه أن كل كاس أنك أو سكر سونية يقوى الشقيننا ولا لا هي إن سنا كاشنا wixii dibana soo xidhayna wax kastana bal soo fudaydinayna sidaan ku soo fudaydin karno insha Allah ta'ala sidaas ayaan rajaynayaa kolba talaabo si degdegana annaguna u buuday oo talaabsanayna step by step talaabsanayna iyaan insha Allah bal dhaqaajinayna degmadana horta dhaqaale way leedahay laakiin waxay u baahan tahay dad maskax iyo aqoon way isla kaashada aqoontu maaha ta iskoolka laga soo bartay ilaahay qofka haybad u siiyay jirta ta haybada ilaahay u siiyay iyo ta kaliba qofka iskoolan way iskaashada hadaba maanta insha Allah ta'ala intana walaalaha waxa maxay heeday anigu ma ku xigeenkiya iyo maayirka intayadaas inay maxay hawshaas bal sidii wax loo dhaqaajin lahaa ee degmadani horumar u gaari lahayn ayaan ku bilaabaynaa annagoo kolba talaabo qaadayna wixii xaaladihii dhulkan soo marayna soo tirtiri doona oo soo xidhay assalaamu calaykum waraxmatullahi isku soo gal lahay gubin bay naagi tilaal waan isku nimidnay mar haddaan isku nimidnayna inaan is aamino iyaa meesha taala waxa weeye way jirtaa kala cabasho way timaadaa ilaahay amartaay ana saluud wax kastaba way ma karaan ninkaana daacad u ahayna hadhow dhan isku maroorinayo iminka dawda iminka yaa dawda in caadul ahayna labadii walaalaa sidii daacadu ahayd amba ahdiga baan ku qaadnay aan u kala dhaban iminka dawda waxa weeye waxaan leeyahay xildhibaanadii iyo gudoomiyaha ku xigeenkaba intaba hadii aan nahay war si daacada oo ilaahay taqaana aan isku aamino hanan wala shaqeyno abkeen iyo ilaahay ba amarka ay dadweynaha walaalihina aan ugu shaqeyno wixii nidaabaha meel ka qalloocsan la iska eego waxa weeye walaalaha iyaga aan u liminay kolkaan la hadlay awal kalidiin baa hayay maanta sadda waan igu soo biir oo hadda sidii hore yaa ay kaliyaanta aadaydeen aadna noola shaqaysiin oo damiyay imani ma daacad baa iman ma walaalnimo imani ma ahdi baa imani ma garan wanaag allo wala waxa aan ku soo dhaweynaynaa xildhibaanada soo sheegay maayirku ama se odayaasha ugu horeeyay muddo ka maqnaan degmada
ka soo baxay degmada Lughaya ee qaybta naga ahaa in sugeynay muddada sanadka iyo bilaha aas kuwaasoo ka maqnaa bixiyay shaqada degmada laakiin ka tirsanaa xildhibaanadii degmada Lughaya waad aragtaan imika cod bixinta maaha cod uu maay xigeenku xogtay xildhibaanada ma ahayne waa cod loogu talagalay madaxweynaha sanadka iyo siyadaaba inuu u yaalo ku sug meesha uguna talagaleen xildhibaanada kale waaliyay imika codka siinayay waa 13 xildhibaan waxaad arkaysaan in codkiisa mooyaan 12 cod kaliba ay hal mar gacan taageen taasi waxay ku tusinaysaa muxubbada loo qabay walaha deegaanka ka maqan meesha waxay ku tusinaysaa in loogu talagalay ku sugan taasoo ah in wada shaqaynta degmadu iyo gacmiska qabashoodu ay si toos u soo noqoto waxaan leenahay sidoo adag oo ka dhawaajinayay qaybtii naga maqnaa daatihiin hormarkay ka baxdaa waa bakay la qaleen anu inaan kugu sii gool xaariyo codna ku hayay carabka ku hayay way muuqataa haddii barqal yimaado xagga ugu jira assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh waxaan filayaa inay si guul ay noogu dhacday maxamed oo egas xildhibaan ahaa egas maayar ha maalinta wuxuu yidhi waar maanta tulkaa keentid cabdiyo maanta warigaa keenay maxamed warkaa waxaan rabaa guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka waa la dardaarmaya xildhibaanadana waa la dardaarmaya guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka waxaan leeyahay waar guddoomiye ku-xigeenku inta badan marad ka tagta maahayna saxaada xoogayaa jooga waxa loo baahan yahay labadii walaalahaada ee isdaqaaleeya adaana dhaqaalahaye inuu horta guddoomiye ku-xigeenka ka galo inaad dhaqaalaysato inaad gacanta ku hayso inaad kalsooni badan aad siiso rag aan iska qabsanin horta haada waa labadiina xoogayuhu wuxuu hoos yimaadaa guddoomiyaha si toosa laakiin marka xilka laga tago guddoomiye ku-xigeenkuna toos buu hoos imanaya ama kolleyba hoos yimaadaa laakiin marka dhaqaale la yidhaahdo guddoomiyaha iyo xoogayaha iyaa toos uga ulay inaad ixtiraamtaan baan horta labadiina inagu dardaaraya waxaan kaloo maayir kale labadiina nin sidaad u hagtaan reeraha meesha yaala ayay ku soo noqonaysaa samaantu waa la kala maqnaa waxba laguma kala maqnin hadii la kala maqnaa waa la sheekaysanayaa wax badan baa laga sheekaysanayaa wax badan baa furfuri doona waxaan leeyahay si wanaagsan dadka waga meelaha bilaa cashuurta meelaha meel walba gacanta geliya qodobka kale guddiyada meeshii kaa maqnayd waxay guddi lahayd adaa lagaa rabaa kula guddiyada samee ama guddoomiye ha noqdo ama guddiyo kalaba ha noqdo kulli adaa ka madaxa golaha deegaanka adaa sameynaya intiina kalena waxaa leeyahay waxba inagama dhexeeyaan waad wada qiishiin wanaag iyo sharaf u sheekaysta Lughaya uu sheegay maayarku inay dhibaatooyin ka jiraan dhulka kale laakiin weli Lughaya kama dhibaatooyinka deegaanka baa iska qabsanaya yaa jirta laakiin Lughaya ma laha waxaana keenaysa dad waaweyn baad u badantii bayadaatiin wanaagaa ku wada dadka soo dhaweeya labada dhinacba dhinacana dadka soo dhaweeya dhinacana soo dhaweeya wax alliya wax dadka dhex yaala ma jiro wada dhasheed ومانت هذين نقول بالويديو أنا بدر حام بدرش أنا عبد الله جديد بدر لبنا أنا بمشي كذا دري كم دري وانا جهلا ولا له لا يبان نقول مانت هنا دست كانوا شركنا هذين رجع سيدي وحيروا دردار نورنين من حريه يبان شعرها